السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بداود الكسر دواد برنامجكينا ما ogtahay barnaamijkeena ma ogtahay waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhda kubadda cagta iyo xilligii la soo bilaabay iyo cidda u bixisay kubadda cagta in loogu magac daro kubadda cagta. haddaba haddii aad daawada nagu cusub tahay fadlan nagu soo biro subscribe saar channelka like na saar videoga si ay dhiirigelin uga helno. kubadda cagta sidoo kalena loo yaqaano banooni waa isboortiga ugu caansan caalamka oo idil, waxaanay ka mid tahay ciyaaraha tan ugu duqsan amaba ugu da'da dheer. kubadda cagta waxaa laga yaqaanaa caalamka oo dhan, waxaana la ciyaari jiray qarni aad u dheer. kubadda cagta waxaa loo ciyaaraa koox oo koox walba ay ka kooban tahay 11 ciyaaryahan, waxaana isticmaalaan balooni amaba kubad oo koox kasta iska difaacayso in aan laga dhalin gool. koox walba waxa ay leedahay goolhaye oo ah kan kubadda qabanaya amaba ka difaacaya goolaha inay kubaddu gasho. kubadda cagta amaba balooniga waxaa la aasaasay 1409 taariikhda miilaadiga. ereyga soccer amaba kubadda cagta waxa uu bixiyay dalka America sanadkii 1486 taariikhda miilaadiga. qiyaas ahaan waxa daawada amaba ciyaaro kubadda cagta 3 ilaa 5 milyan oo qof. waxa ay aad caan uga tahay kubadda cagtu qaaradaha Yurub, America, Afrika iyo qayb ka mid ah qaaradda Aasiya. waxaa jira urur la yiraahdo FIFA taasi oo maamusha kubadda cagta meel walba oo adduunka ka mid ah. waxaa jira qaanuun ay leedahay FIFA oo ah kaarka jaalaha ah amaba huruudda iyo kaarka casaanka ah. kaarka cas ayaa marka ciyaaryahanka la siiyo banaanka looga saaraa garoonka, xagga hurdigana uu yahay digniin. FIFA ayaa waxaa hoos yimaada ilaa 4 urur, kuwaas oo kala ah CAF oo maamusha xidhiidhka kubadda cagta ee Afrika, iyo UEFA oo maamusha xidhiidhka kubadda qaaradda Yurub, iyo CONCACAF oo maamusha Ameerikada Waqooyi, iyo AFC oo Aasiya maamusha. kubadda cagta ayaa ah mid aad looga xiiseeyo dhammaan caalamka oo dhan,